السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha qaaliga kusoo dhawaada lakcharadeena maadada ocular anatomy and physiology. insha Allah maanta hadii ilaahay waxaan ka hadlaynaa iriskan ka hadlaynaa. hore waxaa ugu soo hadalnay mataqaana outer layerka casharada ugu dambeeyay waxaa kaga hadlaynay layerska oo structureka casharadeena kasoo hadalnay oo ahaa 3 layer in loo kala qaado outer layer, middle layer, inner layer. marka outer layerka laba usii kala qaadnay, labadii hadda soo dhameynay. maanta waxaa bilaabaynaa hadii ilaahay yiraahdo middle layerka ka hadlayna hadii la yiraahdo. middle layerka guud ahaan waxaa iskugu dhahaa uvea iskugu dhahaa. layerka ugu horeeya laga hadlaayana waxaa loo yaqaanaa iris maanta ka hadlayna. qaybta kalarka oo mataqaana indhaha u sameyso iriska waa circular asigu wareegsan yahay. sidoo kale waana colored wuuna color ayuu leeyahay. qaybta isha kalarka u sameyso madow, qof markii la ishiisa madow waa, buluug waa ishiisa, cagaar waa markii la dhahay. meeshas oo cagaarka iyo kalarka waxaas le waxaa loo yaqaana iris ayaa loo yaqaana. iriska wuxuu u dhexeeya cornea iyo lensiga ayuu u dhexeeya. intan waxaa ka jiro corneada iriska, intan waxaa ka jiro lensiga ka jira, dhexdan ayuu ku jira iriska. soo marka world of iriska wuxuu ka imaaday wuxuu ka imaaday Greek word waxaana loo yaqaana rambo waxaa loo yaqaana caasha carab dheer, ama waxaa kaloo dhihi karaa maxaa la geeda oo markuu roobka oo mataqaana oo kadib dhalato oo kalarada badan leh ayaa loo yaqaana. soo marka diagram ahaan marka laga hadlayo iriska centerkiisa qaybtiisa dhexe waxaa loo yaqaana bibilka centerkiisa dhexe waa bibilka soo marka topograph ahaan average of iris markii laga hadlayo averageka diameter ahaan markii laga hadlayo wuxuu gaaraa 10 ilaa 11 millimeter oo thickness oo culeys ah ayuu gaaraa. approximate markii asiga la qiimeynayo waa 1.5 millimeter from wuxuu ka imanaa pupil marginka waxaa la pupil marginka meesha oo qaybtan oo bibilka markuu saan godkan oo u yahay qaybta oo ugu geesaha marginkaas ayaa la dhahaa. marka iris rootka xididka qaybta dambe ee iriska asigana waxaa lagu qiimeeyaa 0.5 millimeter. iriska asiga waxaa loo kala qaadaa marka anterior iyo posterior loo kala qaadaa. midka koowaad anteriorga ka koowaad waa kana, ka labaadna waa posterior surface. anterior surface iyo posterior surface ayuu leeyahay. iriska anterior surfaceka wuxuu leeyahay laba xaba ayuu leeyahay, laba zone ku jiro. midka ugu hore waxaa loo yaqaana pupillary zone iyo ciliary zone ayaa loo yaqaana. pupillary zone asiga extendi wuxuu ku dhamaa wuxuu extendi ku yahay pupil marginka qaybta dambe ee pupil margin dhamaadka pupilka ayuu mataqaana extend ku yahay to the colorate. also sidoo kale pupil marginka waa flat, wuu fidsan yahay, aad ayuu fidsan yahay. sidoo kale pupil marginka waa dark portion dhibic oo madow oo portion sidoo kale as waxaa waa pupil rough maxaa la marka pupil rough waxaa la dhahaa waa anterior transmitted, waa anterior qaybta hore oo layerka oo mataqaana pigmented layerka qaybta hore ee pigmented layerka waxaana yaala lies waxaa mara posterior surface of the iris ayaa mara. kan labaad waxaa loo yaqaanaa ciliary zone as extend wuxuu ku yahay colorate oo colorate ayuu ku yahay, wuxuuna ku sii yahay iris rootka. some depression ama pigment arrangement ayaa rose present waxaa loo yaqaanaa known as waxaa loo yaqaanaa cryptiskaas asiga laba meel laga hela. cryptis waxaa la dhahaa iriska markii laga hadlayo markii iriska laga hadlayo waxyaabahaas oo saan oo mataqaana saan cryptis la marka cryptiskaas laba meel bas laga hela, near the coloratekaas iyo waxaa kaloo laga helaa peripheral iris, geesaha iriska bas laga hela. posterior qaybta dambe waa much more uniform, qaybta dambe aad ayay mataqaana iskugu xiran tahay. sidoo kale posterior iriska waa dark qaybta hore ayaa mataqaana color waxaas leeyahay, qaybta dambe waa madow markii qaybta dambe laga hadla iriska markuu saan u yaalo labada qayb iriska markuu saan u yaalo qaybta hore maana qaybta dambe aad ayuu madow yahay. then anterior surface ayuu markii loo fiiriyo ayuu cadaan. soo marka microscope markii lagu fiiriyo microscope macnaha waxa la adeegsanaa sometimes markii la adeegsanayo slit lamp markii la adeegsanayo marka waxyaabo lagu arkayo. asiga wuxuu leeyahay anterior limited layer ayuu leeyahay. anterior limited layerka lies wuxuu yeeraa asiga anterior part of iris ayuu yeelaa, qaybta dambe of iris ayuu yeelaa. condition of the iris
oo stroma consist wuxuu ka kooban yahay marka laba xabo ka kooban yahay fibroblast iyo melanocytes. Melanocytes ka hore oo soo hadalnay fibroblastis waa maadoon u sameynaya kalarka melanocytes ka jir ahaan melanin jirka ay u sameysaa iriskana waxa u sameeya melanocytes iyo fibrocytes. So marka colors iris of a color inay yeelato iriska depend on waxay ku tiirsan tahay thicknesska adkaanta ay ku tiirsan tahay oo melanocytes adkaanteeda ku tiirsan sidoo kale anterior limited layer ay ku tiirsan tahay. waxaa jiro saddex wax oo markii laga hadlayo color of iriska isha colorka u sameeya iriska markii laga hadlayo saddex wax ayaa jiro markii waxyaabahan in la helo waa kadib ayaa ka iris of color dhalnaa. kow waxaa waa density of structure inuu adag yahay oo cuf uu leeyahay markii laga hadla iris stroma. labo pigment epithelium qaybta hore epitheliumkeeda oo colorka leh. ugu dambeyntii pigment constant kaasoo ku ah with iris stroma oo granulosa loo yaqaan. marka intaan xabo waa muhiim in la mataqaana in la helo wayna ku tiirsan tahay colorka iriska. waxaa jiro erey cilmiyeed la adeegsado oo heterochromic iris la heterochromic waa erey oo Greek word waa laakiin heterochromic marka laga hadlayo waa dependent wuxuu ku tiirsan yahay waa heterochromic waa difference waa heterochromic waa difference waa iris no iris waa different iris. dad qaarkood waxaa jira hal il oo colorkeeda oo labada il colораdeeda ay kala duwan yihiin ama hasha il gudaheeda ayaa intaasoo color kala leh. so markay coloradaas kala badan ee qofka ilaahay waxaa loo yaqaana erey cilmiyeed oo terminology la adeegsadaa jiro. terminology la adeegsado waxaa loo yaqaana heterochromic iris loo yaqaana. iris stromaha wuxuu ka kooban yahay laba masal ayuu ka kooban yahay. wuxuu ka kooban yahay sphincter pupillae iyo dilator pupillae ayuu ka kooban yahay. iris stromaha in stroma markii laga hadlayo cellska oo leedahay iris stromaha cellska oo leeyahay laba loo kala qaada cell oo pigment cells ah ina pigment cells loo yaqaan. pigment cellska asiga laba ayuu ka kooban yahay melanocyteska iyo cap cells oo cap cells wuxuu kaloo leeyahay maadada melanocytes u sameynaysa. sidoo kale non pigment cells ay jiro. non pigment cells asiga waa fibroblast lymphocytes melanocytes iyo mast cellskaas ayuu leeyahay non pigmentiga. waxaa kaloo jiro blood supply qaybta ugu dambeysa soo gaarnay blood supply intuu ka hela iris wuxuu ka helaa anterior ciliary artery ayuu ka helaa. sidoo kale nerve supply nerve cessation dareekar waxaa siiyo oculomotor nerve oo third cranial nerves ayaa siiyo. intaasoo kusoo gabagabeynayna waa idinkaga mahad celin doosha video. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.